walaalo muxsiniin ah ayaa waxa ay maanta xarunta Maamo Oday Foundation 10 neef ugu qaybiyeen dad isugu jira danyar iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waayeelo curyaamo indhoolayaal ay isugu jireen dadka loo qaybiyay hilibka udxiyada kan gudoomiyaha Maamo Oday Foundation mudane Maxamed Amiin Cabdisaaq Aadan Macalimo waxa uuna ugu horeyn alla ka sokow mahad balaaran u jeediyay dadka muxsiniinta ahaa ee soo sadaqaystay xoolahani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد maanta حسنات هكاسيو مام ساين حبيب قولي سيدو كلا أحمد سليمان ولكن أسجن وحوسو صدقيستي هالنف وقلت له قريدات كان ولا الله هنا قداش أنا كم وغدا سيدو كلا واحد جرتا ليلى حسن أيضا وحيسو ديبتي أو صدقيستي هالنف ولاشين نعيم النور أيضا سيدو كلا وحيسو صدقيستي هالنف إلهي دمانتود أجري حسنات أنا لسوكو بكن الله سيو أولاده ضباري الله أقدقو مرادكو دمانت قيامها mid shafiica ah Allah uga dhigo sadaqada ay la bixeen maalinta qiyaama mid shafiicada Allah uga dhigo waalidiintooda Allah u gaarsiiyo sida jeceliin Allah uga dhigo sidoo kale waxa jirto macallimad Hinda waxay ka mid tahay 10 qofood ee maanta soo sadaqaystay xoolaha maadaama maalinka ugu horeysay udxiyada ay tahay waxay soo baxsatay hal neef Ilaahay ayadana muraadkeeda ha u sahlo sadaqadaas Allah u aqbalo awlaadeeda baari Allah uga dhigo maalinta yoomul qiyaama mid anfacada Allah uga dhigo dadkan curyaanta iyo jiisaska iyo danyarta isugu jira sadaqada ee soo siisa Ilaahay mid aqbasho oo sadaqadaas aqbal u noqoto Allah uga dhigo maamo Ilyas ayadana sidoo kale waxay la baxday hal neef Ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda Allah siiyo say jeceshahayna Allah siiyo muraadkeedana Allah u sahlo qiyaamaha Ilaahay ha u nuuriyo qabrigeeda maalintii yawmul qiyaama jannada Allah ugu bedelo sidoo kale maamo Leila Sheekh Daawud oo mar walba jecel khayrka maalmo ka hor dharka ciida 30 qofood oo agoon iyo danyar isugu jira dad ilmo agoona korsanaya iyo dad curyaamo ahba dharkoodii ay ku ciidi lahaayeen siisay oo dad waaweyn ahaa ayada jeebkeeda ka bixisay maantana waxay la baxday 2 neef oo aad u jeediin 10 neef ee aan maanta meeshaan ku qaybinayno Ilaahay maamo Leila Sheekh Daawud muraadkeeda ha u sahlo muraadkeeda Allah u sahlo awlaadeeda baari Allah uga dhigo miisaanka qiyaamaha Allah u saaro qabrigeeda maalinta qiyaama Allah u waasiyo jannatul firdaws Allah geeyo waalidiinteeda inta dhimatayna Allah ugu naxariisto inta noolna Ilaahay caafimaad Allah siiyo inta ka xanuunsan caafimaad Allah siiyo maama Saadiye geedi ayadana waxay la baxday hal neef Ilaahay ayadana muraadkeeda ha u sahlo Ilaahay muraadkeeda ha u sahlo waalidkeeda baari Allah uga dhigo waalidiinteeda iyo caruurteeda baari Allah uga dhigo waalidkeeda kuwa jecel ilmaheeda kuwa jecel maalintii yawmul qiyaama kuwa ay khayrkoodi iyo wanaaga ay maanta samaysatay ajar iyo xasanaad Ilaahay ugu bedelo Allah ka dhigo muraadkeeda Allah u sahlo waa maalintii ugu horeysay ee Eidul Adha waana sanadkii 2022ka Ilaahay sadadkan ay ka farxisay farxadaas farxad ka daran oo ka badan oo ka khayr weyn oo ka weyn Allah ugu bedelo dhammaan 10kaas qofood ee soo sadaqaystay muraadkooda maxaa dhahdeen waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyay udxiyada waxa ayna si guud ugu duceeyeen dadkii la soo baxay sadaqadani sadaqadii naaji Ilaahay ka dhigo intii soo baxsatay Ilaahay wax khayr aamin Ilaahay weeno waaxid ka asi xasanaad Ilaahay asi aamin kaayga laga soo bixi kaayga hureer Ilaahay aamin Ilaahay weeno aamin
intaan islaam ummadda nabi maxamed wax siisaan idinkan wax khayr qaba ilaahay idinku bedelo ilaahay irid khayr qaba ilaahay aamin bismillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii waxaan soo sadaqaystay muraadkooda ala saalo inta muslimiin oo xanuunsan ilaahay caafiyo wixii soo sadaqaystay muraadkooda ala saalo insha Allah khayr ala siiyo waniga faraysan oo farayna ala u farxasho shafaataha qofta nagu sadaqaysan dadkii nagu sadaqaysteen walaalahay jiro on kala cadin yareen on kala khayr yareen Allah ka dhigo Allah ku cafiyo Allah ku liibaansho ilaahay idankiis waa nagu sadaqaysteen tayxidku ku tagaan lagu dhigo naqamaaya misaalkiisa Allah ka dhigo idam Allah kiisa ugu dambeyn waxa goobta ka hadashay maama Abshiro Cali Cumar oo loo garan og yahay maama Abka Xaaji taa oo kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed had iyo jeerna garab taagan danyarta iyo agoonta waxayna qurba joogta Soomaaliyeed ugu baaqday inay garab istaagaan danyarta iyo agoonta Soomaaliyeed iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو أبكي حاجي وكمد كرجاك أغونتا ما أنتو حنصوب وقضي ما رتي شيء كرجاك أغونتا ما معودي فوديشن ما شاء الله وحال ما أنت إيد الأحلى لقلي توانف ولا قيبي ضد عريامين يعون للسيء مرك ما شاء الله وحانو باقي inta kale toodo qurbaha jirtana inay saano kale u soo booqato oo u aragto wixii la dhiibayo iyo siday tahay iyo dadka wax u baahan oo mar walba in wax loo soo celiyo oo maaragtay waxaan cunaynaa aan wax ka reebno yaase iyaga dadkaan oo kale toodo wax u helaan ayaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa walaalaha soo baxsaday macnaheedu sadaqadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaad Allah ugu xifdiyo cimriga Allah ugu dheereeyo caafimaad Allah ku siiyo wixii jecelyihiin adduunyo aakhira Allah ku siiyo waalidiintooda iyagana ahlu janna Allah ka dhigo biidmillaahi kariim saasaan leeyahay walaalahayga khayrka badan ku soo dhawaada gargaarka agoonta